dib u sax wixii dhacay oo mansaka tarjumaysa dhibaatooyinka laga dhaxlay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya mansadan waxa alifay abwaanka daadaya barow Axmed barow dalmar waxaan lagu duubay studio sameeyay ee dalka Holland waxaan codkiisa ku soo tabeeyay anigoo Cabdiraxmaan Nuur oo kala Cabdiraxmaan Lek dhageysi wanaagsan dawladnimadu waa sharaf qalandoonkuna waa dahab kii colaada danaynayo ducuf weeye caaqada miirkiisu dilan yahay Soomaaliyeed yownay isdilnay isdooxanay darbiyada ku ooyni qaxooti ku daalay intaan isdaba marin magaceenu dabalgoyn hal la doono samaho dib u saxa wixii dhacay qabyaalada dulaysan diif baan ka qaadnay hal la duugo gabigeed daayacnaanta inay hari daah nagama saarnay waxa taa daliil u ah dibad wareegiyo hadba wadan dalxiiska intay daaro wada dhisteen caruurtooda dugsiyada dal shisheeye geeyeen waa daahirtaasi maxaa laga daalacan doofaar ma daahire aduu biyaha dabaashay inay dora dad laaya maantana dooranayna Soomaaliyeed dantaada garo damiirkaaga kaasho dooro kii wax haygi kara dib u saxa wixii dhacay